السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعبد الناصر أو مانتنا سيدي عادة إنه أحيد هلك كان إذا كسب باهن دون برنامج يديني تحنها أها أن إذا كسب باهن شري يوتيوب كنا نورية عادي. وحن كعذر دارنا يا أو أنا ذكرها لي قرينا يا دمانتين ددوينها أما برشة صوماليات يقول حرن مددي أينو كلام مقنين أما أن كم مقنا aanan madasha soo fariisan aad baan uga xumahay waan idinka raali gelinayaa insha Allah ta'ala laga bilaabo maanta waxaynu halka ka sii wadi doonaa barnaamijyadeena taxanaha ahaa ee ku saabsanaa arrimaha dhaqanka suugaanta Soomaalida iyo wixii kale ee la halmaala bal markaa maanta insha Allah waxa aan idin hayaa qayba kamida wali mahmaahii ayaan ku sii socon doonaa oo bal hadda aan halka kan idinka soo jeedin doonaa soo dhawaada baan idin leeyahay dhamaantiin soo dhawaada mahmaahda koobaad ee aan maanta halka kan idinka soo jeedinayaa waxa ay leedahay saddex waa laga tagaa baa la yiri saddex magan muran badan midiidin dhaga adag iyo min yara masayr badan saddexdaa waa laga dheeraadaa waa laga tagaa magan muran badan magantu waa qof adiga ku soo biday nabadgelyo oo gurigaaga iyo hoygaaga yimid oo ku soo magan galay oo cadow daba socda ama eryanaya ka magan galay oo ku yiri magan galiye isii oo iga badbaadi cadaawaha idilaya ama daba socda iga badbaadi qof ku yiri weeyi haddii qofkaasi uu noqdo qof muran badan oo marka aad tiraahdo waar dadka noocaas ah la hadli ama meesha caynkaas ah marin khatar baa jirtee hadduu yahay qof aan waxba ka dhageysan intuu ku ceebayn lahaa ee la oran lahaa magantiisii baa lagu ag dilay ka dheerow oo iska kaxeeyo halku ka yimid saad u gaarsiin lahayd falowgeeda gal magan muran badan waa laga fogaadaa waa laga dheeraadaa laba midiidin dhaga adag midiidinku waa qofka shaqaalaha ah ee ku shaqeeya ama guri ha kaaga shaqeeyo ama guunyo xoolaha kaaga shaqeeye qofkaas la oran jiray waagii hore midiidin laakiin waa qof shaqaale ah oo ku shaqeynaya labiyo dhadi ku doonaba ha ahaadee hadduu kugu dhaga adkaado kaasina waa la iska diraa waa laga fogaadaa waayo waxa laga yaabaa in aad u geysato aflagaado amaba ay gacaniba qofkii kaga dhacdaa laga yaabaa si aanay taasi haddaba u dhicin qofka dhagaha adag ee midiidinka ku ah ama shaqaalaha ku aba yiraahdeen waa laga fogaadaa waa laga dheeraadaa saddex min yara masayr badan gabadha min yarada ah ee masayrkeedu faraha badan yahay ee iyadoo min yara ah haddana masayraysa taana waa laga dheeraadaa baa layidhi waa kii lahaa Carays Ciise Kaarshe min yara uu galay masayr min weyntii ay maslixi masalo weeye aanan maqal wali maynaan arag min yaradii oo hinaasta oo min weynadii ay maslaxayso wali waa waxyaabaha aan la arag inkastoo filaya in hadeer la arkay marka min yaradu loogama baahna iyada masayr tii ka horeysay ayuu masayrku u furan yahay iyada laakiin masayru ma furo dee waa ay ku gashay afarta dumar ee ninku wada qabo afar magac bay kala leeyihiin waa taqaanaan baan u malaynayaa dhammaantiin haddaan idiin dul maro gabadha koobaad waxa marwada koobaad magaceeda min weynaa la yiraahdo markuu ninku tulabaad guursadana waa min yaro ta saddexaad markuu ku daro waxa weeye magmagato ta afraad markuu ku darana waa murdiso min weyno min yaro magmagato iyo murdiso waxa weeye waa tii afraado waxba meesha kumay soo gaadhin leefleefun bay meesha ku soo gaadhay min weynadu waa gabadhii koobaad min yaraduna waa gabadhii labaad magmagataduna waa tii saddexaad murdisaduna waa tii afraad afartaa magacbay ayay kala leeyihiin midna la caayi maayo laakiin wuxuu baa la sheegayaa maadaama afarta dumar ragga muslimka ay u bannaan yihiin inay afar dumar guursadaan magacyadii ay Soomaalidu u kala bixisay ayuun baa la tilmaamayaa oo la sheegaya waayahay markaa min yara masayr badanna waa laga dheeraadaa baa la yiri saddexdaa waa laga fogaadaa saddex waa laga tagaa ama waa laga dheeraadaa magan muran badan
midiidin dhaga adag iyo minyaro masayr badan. Mahmaahda labaad waxay leedahay saddex way ku hodaa baa la yidhi, saddex waa ay ku hodaa. saddex waa ay ku hodaa. hadh arooryo hilaac basari iyo hogol xagaa. saddexdaasi way ku hodaan. hadh arooryo waxaad is odhanaysaa weli duhurba may gaadhina waa xilli iska aroora. hadhka aroortii wuu ku hodayaayo wakhtigii buu kuu qarinayaayo waxaa laga yaabaa hawshii aad u kici lahayd in hadhkaasi uu kaa hadoodilo oo aanad kuba toosin hawshii kugu aadanayd ama hawshii kuu taallay. hilaac basari waa gabadh heega muuqdheera oo ilaahay qurux siiyey laakiin quruxdeedu nusqaan leedahay oo waa basari. waa gabadh dheer oo qurux badan oo xubnaheedu wada dhammaystiran yihiin oo timahaldhaaleya oo sanqaroor gammaanleya oo waxa weeye aynu odhan karno yacni quruxdii qof haweene ilaahay siin lahaa wuu siiyey laakiin wamaca daalika maxaa u dheer waa basari. markaa waa hilaac basari. dushuunbay ka hilaacaysaa baa loo jeedaaye yay ku hodin kol hadday tahay basari abdadeed male. basaridu waa saddex darajo baa layidhi. waa basari iyo baali iyo bagagi. basari iyo baali iyo bagagi halkoodaynu ugu tegi doonaa. mid walba waxay tahay baynu sharixi doonaa. waynu eegi doonaa sida ay bal u kala darajo iyo heer sarreeyaan basarida, baalida iyo bagagiduba. waayahay hogol xagaana yay ku hodin baa layidhi. saddex way ku hodaa. hadh arooryo hilaac basari iyo hogol xagaa. daruur xagaa soo hoortay yay ku hodin. gabadh qurux badan oo basari yay ku hodin oo gabadh fiican hamoodin. hadh arooryaadna yuu ku hodin oo hawshaada kaa habsaamin. saddexdaasina way ku hodaan baa la odhan jiray. waxa kale oo la yidhi saddex lama galo. saddex arrimood lama galo. habaar waalid lama galo. hansi gabadheedna lama galo. hadimo xoolaadna lama galo. habaar waalid qof waalidkaa habaar ha ka kasbanin. aabbaha iyo hooyada iyo waalidiinta kale ee kugu xeeran ee ay ka mid yihiin abtiyaasha, adeerada, ayeeyooyinka, awoowayaasha, edooyinka, habaryaraha iyo kuwaasoo dhan ha ka kasbanin habaar. ha ka kasbanin habaar. haddaad habaar gasho waa saddexda qodob ee aan la gelin. habaar waalid lama galo. habaar waalid lama galo. hansi gabadheed ha u sheegin gabadh beenoo ha odhanin waan ku guursanayaa adigoo aan guursanayn. waa hansi gabadheedoo waxa weeye ma hadho. qodobka saddexaadna waxa weeye hadimo xoolaad. neef xoola a madaxa bud ha kaga jiidin ama bir ha kaga dhufanin. ha halgaadin. ha ku dhufanin nabar ayaa loo jeeda. waayo neefkii xoolaha ahaa ma aha wax hadlaya, ma aha wax garnaqsanaya, ma aha wax hadlaya oo odhanaya hebel baa halkaa igu dhuftay. halkaasunbuu ama ku dhimanaya ama uu muddo badan waxa weeye dhaawacii aad u geydsatay uu la huudmayaa. yaa ku arkaya laakiin ilaahay adiga iyo isagaba abuuray ayaa maalinta la qatan yahay la qaawan yahay ayaantaan qorraxdii iyo quraanka maqnayn malaa'igta qalinka loo dhiibiyo ayaantaan ilaahay wax qarinayn. ayaantaasaa lagu xisaabi xaggeed qaban. waay qodobka afraad wuxuu leeyahay mahmaahda afraad waxa ay leedahay haddaynu hore ugu soconno ragga saddex baa u liita. ragga saddex nin baa u liita. nin jooga oo aan la tirin, nin maqan oo aan la tabin, iyo nin soconaya ama tegaya oo aan la joojin. nin maqan oo aan la tabin waxa weeye ninku markuu maqan yahay haddii ragga uu tolka la yahay ama asxaabta uu la yahay ay odhan waayaan ninkii hebel baa inaga maqan maanta arrintaasaa inoo taalla ilaa hebel inoo yimaado arrintaasi cidna ka wada hadli mayno hebel baa naga maqane hana la sugo. haddii ninkaa la tabi waayo nin maqan oo aan la tabin haddii ninkaa la tabi waayo waa raganimadiisii ninkaa waa liidataa. nin jooga oo aan la tirin lamaba tirsadaba wuu joogaa laakiin tala lagama soo qaybgeliyo. meel go-aan iyo shir lagu galayo loogama yeedho. geedka iyo golaha waayeelka garcasta iyo guurtudu isku arkaan ma tago. waa ninka noocaasa. kaasina waxa weeye waa nin jooga oo aan la tirin. waa ragga u liituu ka mid yahay. nin tegaya
iyadoo shirkii socdo odhanaya waan iska baxaya anigu iyo waan tagaya cidina celin mayso odhan mayso waara tagina horta shirku ha dhamaadee fadhiiso waayo waa la yaqaanayo waxa lagu ogyahay inuu yahay nin fudud oo hadalkiisu uu yahay hadal aan miisaan lahayn ama aan xigmad buuran lahayn sidaa daraaddeed baanay cidina aanay u celinayn raggana saddexdaasaa u liitaa la yidhiyo waa nin tegaya oo aan la celin nin maqan oo aan la tabin iyo nin jooga oo aan la tirsan saddexdaasina ragga ayaabay u liitaan baa la yidhi maahmaahda shanaad aan ku soo gebagabaynayaa waxay leedahay saddex socodkay ku fiican tahay saddexna fadhigay ku fiican tahay saddex socodkay ku fiican tahoo daadku socodkuu ku fiican yahay diinfidiyuhuna socodkuu ku wanaagsan yahay allahuma salli calaa maxamed doobka guurumeerka ihina socodka ayuu isaguna sidoo kale ku wanaagsan yahay ama uu ku wacan yahay saddex socodka ayay ku fiican tahay daadku hadduu daad soo rogmado oo uu fadhiisto meeshii beeshu taallay dad iyo duunyaba waa qarqinayaa oo wuu qaadayaa dadkii wuxuu ka dhigayaa wuxuu dila iyo wuxuu dhaawaco duunyadiina sidaasoo kaleu ka dhigayaa markaa daadku sidiisaba wuxuu ku fiican yahay socodka ayuu ku fiican yahay diinfidiyaha ninka diinta fidiye ee wadaadka ihi isaguna sidoo kale wuxuu ku wanaagsan yahay socodka ragga socodku wow door hadduu mawdku daayo ninku mar hadduu diinfidiye yahay waa inuu beesha oo dhan gobollada dalka oo dhan wadamada muslimka oo dhan waa inuu diinta uu fidinayo uu gaadhsiiyaa haddii aanu soconina uu meel u fadhiyo diintii ma gaadhsiin kara meel labadee waxa kaloo socodka ku fiican doobka guurumeerka ah ninka guurumeerkii waa inuu raadiyaa gabadhii uu doonayay ee uu xushay isagu waa inuu beesha dhexdeeda ka raadiyaa oo uu sahan guurumeer galaa waa inagii hore u nidhi laba sahan baa jira sahan guurumeer iyo sahangeeda doon sahan guurumeer waa nin gabadh raadsanaya sahangeeda doonna waa nin meel uu reerka dejiyo oo baadiyo biyala raadinaya waayahay waxaan filayaa halkaasaan ku daynayaa insha allahu tacaala mahmahaha maanta halkaasaan ku daynayaa aad iyo aad baad u mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh